danjira maxamed cali America kusoo dhaw BBC-da shir ayaad gasheen siyaasiyiin badan qodobo ayaa ka soo sarteen waxaana ugu muhiimsanaa maqaamka caasimadda waa maxay xuquuqda ka maqan dadka Muqdisho ee aad raadinaysaan hadda ma santahay arrimaha ka hadalnay way badnaayeen waxaana xoog saarnay arrinta maqaamka magaalada Soomaaliya ee Muqdisho dastuurka ayaa wuxuu qorayaa in gobollada Soomaaliya oo dhan ay helaan maamul goboleedyo gobolka Banaadir oo ka mid ah gobollada Soomaaliya waa gobol kaliya aan haysanin maamul goboleed waa gobolka ay ku taalo magaalada Soomaaliya ee Muqdisho waxa ku nool dad kor u dhaafaya 2.5 milyan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah xaqooda in la siiyo waa waajib xukuumaddu waxa ugu baaqnay inay si degdeg ah maqaamka Muqdisho ay u geeyaan baarlamaanka loona ansixiyo waxaan kale ugu baaqnay in dadkaas Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Soomaaliya Muqdisho ay yihiin muwaadiniin mataqaanaa xaq u leh inay xaqooda helaan waa gobolka kaliya aan dhihi karno bixiya canshuurta mataqaanaa dawladda ay ku shaqayso saas daraadeed xaq ayay u leeyihiin in la siiyo waxaan ugu baaqnay in si degdeg ah ay doorasho loo geliyo dadkaasna ay doortaan gudoomiyaha iyo maxaa la dhahaa mayorka ama duqa magaalada ee Muqdisho maamul goboleedka aad rabtaan iyo maqaamka aad rabtaan ma mid la mid ah maamul goboleedyada kale ee jira anigu waxaan aaminsanahay inay noqon karto maadaama ay tahay gobolka kaliya ugu dadka badan gobollada Soomaaliya inay heli karto mataqaanaa state gooni ah la dhihi karo Banaadir state ama xataa maadaama hadda la soo magacaabo gudoomiyaha iyo mayorka ee Muqdisho in dadka ayaga laftigooda ay doortaan qof ayaga ay mataqaanaa rabaan haddii maamul goboleed noocaasi laga dhiso magaalada Muqdisho madaxweynihii iyo xukuumaddana ay degan tahay halkee madaxweynaha ka talinaya qaranka kan maamul goboleedkana oo ka talinaya dawladda iyo madaxweynaha waxay maamulaan ama mas'uul ka yihiin Soomaaliya oo dhan gobolka Banaadir kaliya maaha si hadda ay ku shaqeeyaan dawladdu waxaa la rabaa inay maamulkooda ay geyso gobollada kale ee Soomaaliya oo dhan waxaan rabnaa dadka hadda ee degan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee degan Muqdisho xaqooda in la siiyo waxay ku heli karaan in ayaga isdoortaan doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho waxay taas hormuud u noqon kartaa in gobollada kalena la doorto ee doorashooyin ka dhacdo ay doortaan maamul goboleedyada madaxda maamul goboleedyada dad qaarkood ayaa ku doodayaan in ilaa 6,000 oo shaqaalaha dawladda ah ay Muqdisho ka shaqeeyaan wasaaradihii ay wada degan yihiin safaaradihii ay wada degan yihiin ciidamadii oo 20,000 ah ay inta badan gobolkaasi ka yimaadaan jirtana in xuquuq ka maqanba aysan jirin dadka Muqdisho dadka dooda noocaas qaba maxaa ugu jawaabaysaan maxaa la dhahaa golaha wasiirada iyo safaaradaha waxaa loo sameyn karaa degmooyin ka mid ah gobolka Banaadir ayaa loo qodoyn karaa la dhihi karaa waa meesha ay dawladdu ku shaqeynayso gobolka Banaadir waxaa meenaa inuu kooban yahay 17 degmo waa la qaybin karaa laakiin waxaan rabaa marka hore in la isla fahmo dadkan xaqooda la siiyo maamulada hore ku meel gaarka ahayeen kii hadda kan ka horeeyay oo mataqaanaa dawladdii hore ee dawladda Xasan Sheekh madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud way ballan qaaday kulligood inay maqaamka iyo dadkaas degan gobolka Banaadir la siinayo xaqooda waa laga daahay waxaan aaminsanahay in xaqooda dadkaas in la siiyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir loo baahan yahay dhaqsan loo siiyo insha Allah ma idinla tahay in dawladda federaalka ee hadda jirta idinka aqbali doonto baaqani maqaamka caasimadda insha Allah waan rajaynayaa haddii la yiraahdo inay aqbalaan sababtoo ah caburinta faraha badan lagu hayo dadka Soomaaliyeed ee degan gobolka Banaadir way ka bixi lahayd haddii ayaga ismaamulaan haddii maamul goboleedka aad rabtaan iyo maqaamka aad rabtaan laga hirgeliyo Muqdisho oo xaaladda hadda Muqdisho ay hadda ku jirto ay sidan dhaami weysa ka waran wallahi hadda aniga bari kama hadli karo ilaaha ayaa sheegi kara laakiin waxaan aaminsanahay in dadka markay ayaga ismaamulaan ay doortaan maamulkooda ama gudoomiyahooda ama duqa magaaladooda in ay amnigooda iyo waxay u baahan yihiin ka shaqeynayaan